بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشينا quruxda badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaa si toosan uga daawanaysaan barta Ola Media ee magaalada Mandheera. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa maanta qisada dhameystiran Maxamed Siyaad Barre. Waayiisa noloshiisa maxaa ka xasuusataadii haantaada. ugu horreyn waxaa si naxariis leh kaga codsanaya haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir mahadsanite. inkastoo gabdha meesha ay farfadhiyaan maamaadayda qaraar way iska oranaya xukum jilicsan midna khayr ma leh magaciisa dhabta waxaa la yiraahdaa Maxamed Siyaad Barre. wuxuu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya 22 Oktoobar 1969 inta u dhaxaysay 26 Janaayo 1991. xilligaasi Maxamed Siyaad Barre loogu magac daray ciidanka keligii taliye. sanadkii 1969 inta u dhaxaysay 1991 Jelle Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay Allah u naxariistay magaalada Garbahare bishii Oktoobar 1919 wuxuuna ku dhintay Allah u naxariistay magaalada Lagos ee dalka Nigeria bishii Janaayo 1995 isagoo ah 75 sano jir. taasu ku fulaysay si kastaba ha ahaato laakiin xaqiiqa ahaanteeda waxaan oran karayaa waxa lahaa taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigii xamaasadda siyaasadeed ka taagay wadanka Soomaaliya ayaa ah 1969 koox ciidanka uu hogaaminayay Jelle Barre afgambi lama filaan ku qabsadeen awoodda wadanka ay hal habeen ku qabsaday magaalada madaxda Muqdisho caasimadda Soomaaliya. halkaas ay ku dhawaaqeen dawladii kacaanka ahayd oo loogu magac daray ummadda Soomaaliya. Jelle Barre wuxuu wadanka kor ugu qaaday horumar degdeg ah oo muuqda ayadoo isku si waxtar loo arkayo sida dhistooyinka wadooyinka dugsiyada xarumaha bulshada cisbitaalada iyo sidoo kale dawladda la wareegtay maamulka farqaynta bangiyada beeraha waaweyn shirkadaha muhiimka ah waxbarashada iyo dhammaan wixii muhiim ah sida ganacsiga iyo bai'a mushtarka ah. dawladda waxay si qeexan waxaan isleeyahay haddaan dib u soo noqdo ciidanka cirka ma inkastoo niyo aynu haynay aanu garan karaynay qiimaha ugu fadhigi karo dalka daaficiisa iyo dhismihiisa guudba ma ay noo suurageli kartay inuu dhismo haddii aynaan u helin saaxiibo daacada. bulshada dhexdooda laga mamnuucay inay ku dadaalaan xaaladda dhaqaale xumo ee ka taagneed si xaaladan looga ciribtiro qabyaalada ku aadan dadka inay ku dhaqmaan. waxaana sidoo kale wadanka simnaan ugu dhigay meel walba ay noloshooda ay ka dayacsan tahay. waxyaabaha ugu weyn Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay lagu xasuusto waxaa ka mid ah gacaankii ummadda Soomaaliyeed uu ku soo kordhiyay waxa ay ahayd hirgelinta qoritaanka far Soomaaliga ah taasi ay noqotay mid dhaxgal u ah bulshada weynta ku hadasha luqadda afka Soomaaliga. si loo fidiyo ama loo kobciyo qoritaanka luqadda Soomaaliga iyo dawladdu waxa ay sameysay ololihii afka Soomaaliga ay bilowday sanadkii 1974 waqtigaas oo dugsiyada la xidhay 5,000 arday ilaa 3,000 oo askar xag qalab xag gaadiid iyo xag tababar intaba. waxaan filayaa dhalinyarada caaway hor fadhida inaan mar badan ku iri adduunka ninka kuugu waxtar weyno waxa weeye ninkii cilmiga wax ka siiya. ciidanka xoogga ay ku taagneed magaalaba si loo qoro farta Soomaaliga. dhowrkii sano oo xigay waxaa dawladda ay ku taagneed heer baritaanka farta Soomaaliga iyadoo sii kordhisay dadaalka iyo tababarka muhiimka ah. halkaan waxaan u joogo qisada Maxamed Siyaad Barre waxaan ila socodsiinaya anigu Cabdullaahi Ibraahim barta Ola Media. waanu garansanayn baahida aanu qabnay cilmiga qodada dheer ee cirka ama ciidankanaga cirku qiimaha uu u lahaan karay dalkanaga daafacaadiisa iyo waxtarkiisa kale ee kala gaarka ah. waxaan filayaa inaad garan kartaan in markaan hadalkaas leeyahay in ay ku dhisan tahay waxaan iri taariikh inay ku dhisan tahay xaqiiq inay ku dhisan tahay joogid maalin walba aan joogay
marka ma aha ku tiri kuteenne ma aha muxuu ahaa laablakac iyo xiiso ma aha raaligelis ninaba laakiin xaqiiq weeyaan ninna uusan inkiri karin uusanna tirtiri karin maxaa wacay waxa anoo hadalkaa leh aan ahaa kii ka mid ahaa kooxihii ku dagaalami jiray ciidanku inuu dhismo una geli jiray buul kasta iyo guri kasta iyo dawlad kasta intaba marka waxaan oran karayaa nooma ay suura gasheen heerka maanta aan joogno inaanu gaarno haddii aan saaxiibka lilaaya oo ummadda Soomaaliyeedna u lilaaya muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeedna si khaasa ugu lilaaya uusan nasiinin garab iyo garasho ay garanhayaan qiimaha ballaaran ee ciidamada xoogga dalku ama midka cirkuba uu noogu fadhiyey haddii aynan saaxiibnimadoodu ku dhisnayn mid mabda taageero inay ama waajib ayna isaga dhigin inay taageeraan dad u halgamahaya madax bannaanaantooda iyo kororsiga aqoonta iyo waxtarka gudahooda intaba waxlana lagama gadan jirin haddana weli ima soo gaarin wax itixaadka Soviet usna weydiinayo oo leeyahay waxaan idin taray jamcaa isdhaafay baa gacala ku jirtaaye anna waxii soo celi aniga kolle ima soo marin mana aan filayo inay nin kalena soo martay haddayna aniga isoo marin marka waxaan u celinayaa maxfalka kan uga jeedinayaa si official ama rasmi mahad kaliya laab ummadda itixaadka Soviet Union iyo xusbigeeda iyo madaxdeeda intaba iyo ciidamada qalabka sida waxayna ku qormaysaa taageeradoodu iyo waxtarkoodu intaba ay ku qormaysaa baal dahaba taariikhda ciidamada taariikhda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna taariikhda ciidamada wadanka xoogga dalka uu ka samaysan yahay markaan u soo kaco xagga ciidamada guud ahaanteeda hadayto waxaan kaftanka halka kan ahaa caado u ahaan jiray ciidamadu inay isku tuurtuuraan haddaan u soo laabto waxaa taariikh ahaan jirtay ciidamada badda cirka iyo dhulku inkastoo loo sameeyey dhammaantood inay daafacaan mabda' qura ama dan qura haddana markaan dib u kaco dagaalkii labaad caalamiga ahaa waxaa jirtay in ay ku dhex jiri jireen wakhtigaa ka hor isu tafaahum ballaaran oo ku dhisan isla weynaan been oo mid walba ay geesteeda u dhisnayd waxaa soo baxay markii dagaalkaas uu dhammaaday iyadoo la gartay dhibaatooyinka ka abuurmay muxuu ahaa dagaalka isaga in adduunku idil waan filayaa khaas ahaan inagu qoladii aan addoonka u ahayn aan hadda tooda raaco in dib loogu noqdo qorshaynta iyo wada shaqaynta ciidamada dhulka badda iyo cirka